بسم الله على ملة رسول الله. بالسيجة ها حسنا. بسم الله على ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله على ملة رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، waxaanu hadda kasoo laabanay xabaalaha ama qabuuraha magaalada Birmingham. waxaanu kusoo xabaalnay ama kusoo aasnay Allahu naxariistay adeer Maxamuud Xirsi oo runtii ka mid ahaa odayaashii cuqaasha magaalada Birmingham. waxaan Allah subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa godkii yaraa ee 2 mitir ahaa ee aanu soo dhignay kadibna uga soo tagnay qabrigaas inuu uga dhigo rawda min riyaad aljanna, beer ka mid ah beeraha jannada. waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuusan uga dhigin god ka mid ah godadka naarta. mawdku waa xaq, dhammaanteena wuuna sugayaa, muslim iyo gaal, shayaatiin, abaalisa, jinni, cid walba arrinta keliya oo ay isla ogol yihiin, isku waafaqsan yihiin waxay tahay maalin uun in la geeriyoon doono, maalin uun in la geeriyoon doono oo xaqii uu imaan doono. nafsadeenna iyo ahalkeenna iyo maalkeenna intuba waxay nagu yihiin ammaano. ruuxii wax lagu ammaanaystayna wuxuu filayaa mar uun ammaanadii in lagala noqon doono. wama almaalu walahluuna ilaa wadaa'icun walaa budda yowman an turadda alwadaa'icu. maalintay ahaataba, dhowaa ama dheeraa, markii doontaa a noqotee, nafsadan ammaanada kugu ah waad dhiibi doontaa. qaar raggii xukamada ka mid ah waxay yidhahdeen, geerida markaad xasuusatid isku dar inaad ka mid tahay fii cidaadi alamwaat, dadka geeriyooday. waxaase farqigu uu ka jiraa, waa la wada dhiman, laakiin waxaa lagu kala duwan yahay maa bacda almowt. qofkii ahlu khayra oo adduunka inta uu joogay wanaag shaqaystay, rabbigiis rumeeyey, una hoggaamsamay awaamirtiisa, kana dheeraaday Ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu diiday, geeridu raaxay u tahay. bimujarad nafsadu ay kaa baxdo waxaa ku bilaabanaysa sacaada oo haddaad ogaan lahayd laga yaaba inaad tamanin lahayd mowdkaba, laakiin ma ogin. falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahu min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun. aayaddaasi waxay xambaarsan tahay bishaaro weyn. falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahu min qurati acyun. nafsadaas waa nafsadee, waa nafs almu'mina wey, asaadiqa. laakiin aayad kale waxaa jirta muqaabilkeeda aayaddan cabsi weyn qofka muslimka ku abuuraysa oo ah wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun. ilaahay subxaanahu wa tacaala dhankiisa waxaa uga soo muuqday waxaysan xisaabta ku darsanba. maxaa yeelay ciqaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka weyn yahay wax kastaad maskaxaada kusoo dhacad ku fakarta adigu. idan geeridu xaq wey. nabiga sal lla alay slam markii la weydiiyey ummadda yaa ugu caqli badan, wuxuu yidhi qofka ugu badan xusitaanka geerida. wuxuuna amray calayhi salaatu wasalaam inaan badinno xuska geerida, akfir min dikri haadi biladaat. ilahi subxana wa tala waxaan ka baryaynaa nolosheenna dambe inuu ka dhigo mid ka khayr badan nolosheenna hore midda hadda ku jirno. sidoo kale ilahi subxana wa tala waxaan ka baryaynaa taas inay naga raaxa badan tahay middaan geerida. u diyaargarowno, waxaa loogu diyaargaroobi karna waxaa weeye attaqwa walcamalu saalix. ilahay in laga cabsado, camal saalixana la yimaado. ilahi subxana wa tacaala mowtada muslimiinta u naxariisto. rabbi subxaana wa tacaala kuwa xanuunsan xanuunka ka dulqaado, kuwa dhibaataysan rabbi subxaana wa tacaala dhibaatada ka faydo. covid-19 cuqaashii iyo odayaashii iyo waxgaradkii runtii wuu naga abbaaray, in badanoo ka midana wuu qaatay. ilaahay subxana wa taala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabka naga faydo. jazaakum allahu khayran. halkan waxaan ku aasinay adeer Maxamuud, ilaahu naxariista.
qabrigii waa kana janaaso ku tukanay waana soo gabagabaynay ilaahay waxaan ka baryaynaa oo u ducaynay ducadii inuu aqbalo qabrigaasna uga dhigo rawda min riyaad aljanna beer ka mid ah beeraha jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala ha uga dhigo qabrigan hadda qubuurahan la bilaabay waxa lagu leeyahay halahaana aad u jeedaan waa bukin garaysan yihiin kaas inta meesha ka muuqda waa laga soo booday sababtoo waa la bukin garaystay dad baa bukin garaystay oo dadkooda ma ka xanuunsan yihiin ama si kalaba meeshaad arkaysaan hadda meel cusub waa la furay weeye waxaas way buuxsami doonaan mar dhow